mayd laga dhaxelay qol ka mid ah hudheel la dego kaasoo aanay ka muuqan haba yaraatee wax calaamada oo tilmaamaya in wax loo geystay ama aanu ka muuqan wax dhaawac ahi balse markii loo geeyay dhakhtarkii sharciga ahaa ee baari lahaa maydka waxaa soo baxday arrin aad u cajiiba taasoo ah haba yaraatee in aan maydka lagu tilmaami karin mid si caadiya isaga dhintay kiiskan xalintiisuna waxa uu noqday mid marba marka ka dambaysa sii adkaanaya inta aynu sheekadeennan ku guda jirnana si kasta oo aad u sii malayso ama u sii qiyaasto lagama yaabo in aad garato sida ay ku dhammaan doonto ama sida kiiskan loo xallin doono balse marka hore muuqaalka like saar soona dhowaada si aynu u dhex galno tafaasiisha iyo sidii ay u dhacday sheekadan cajiibka ahi dhacdadan aynu ka warrami doonaa waxa ay dhacday 15 Sebtembar ee sanadkii 2010 nin ay da'diisu tahay 55 sano oo lagu magacaabo Greg Flanagan ayaa waxa uu soo degay hotel lagu magacaabo The Elegante oo ku yaala magaalada Beaumont ee gobolka Texas ee dalka Mareykanka toddobaad kasta bilowgiisa maalinta Isniinta Greg waxa uu ka soo safri jiray gobolka Louisiana isagoo oo soo kaxaysan jiray gaarigiisa soona gali jiray safar qaadan jiray 2 saacadood isla markaana ku soo degi jiray isla hotelkan Elegant oo ay u kireysay shirkadda uu la shaqeeya taasina waxa ay ahayd qayb ka mid ah shaqadiisa waxa uu u shaqayn jiray shirkad ka shaqeysa xuquuqda iyo lahaanshaha dhulka laga qodayo macdanta oo ka hawlgasha dhulka macdanta laga qodo ee magaalada Beaumont haddaba maalinta ay dhacdadani dhici doonto waxa ay ahayd maalin iska caadi ah oo wax waliba ay yihiin si dabiici ah isla markii uu Greg soo gaaray hotelkana waxa uu degay qolka uu lambarkiisu yahay 348 isla marka uu qolka sidaas u soo galana dhanka midig waxa ka qabanaya oo ku yaalay musqushii qolka isla dhanka midig oo xagga dambe ahna waxa taalay sariir ballaaran oo 2 nafar halka gidaarka bidix oo ka soo horjeeda sariirtana uu sugnaa TV-gu sidoo kalena uu dhinac yaalay kabadh yar gidaarka dambe ee ka soo horjeeda albaabkana waxa ku taalay daaqad yar oo hoos yaala miis yar Greg isla markii uu qolka soo galayba waxa uu iska siibay kaba cawlan oo u gashanaa oo uu agdhigay albaabka kadibna waxa uu furay shandadii safarka ee uu watay oo waxa uu ka soo saaray dharkii uu ugu talagalay inuu gashado toddobaadkaas oo waxa uu suray kabadh kadibna inta uu iska siibay dharkii cuslaa ee uu xidhnaa ayaa uu gashaday bijaamadii hurdada kadibna sariirta ayaa uu dhabarka ugu jiibsaday isagoo gacanta ku haysta remote baarayana kanaalada TV-ga ninkan Greg ma uu ahay nin jecel bixitaanka faraha badan oo waqtigiisii dhalinyarnimada waxa uu ku soo qaatay warwareeg iyo inuu kolba xaflado kala kaankaana ka qayb galo balse markii uu xoogaa weynaaday da'dan kontameeyada waa uu iska degay oo waxa uu noqday qof u dhaxeeya shaqadiisa iyo guriga oo kaliya marka uu ku soo dego hotelkan The Elegantena kama uu bixi jirin qolkiisa marka uu shaqada u baxayo oo kaliya ma ahane oo xataa cuntada waxa loogu keeni jiray qolkiisa shay kale oo u muhiim ah sheekadeennan inaynu sheegnana ninkan Greg waxa uu aad u jeclaa qabowga oo inta badan waxa uu shidnaan jiray mukeefka isagoo oo geyn jiray heerka u sarreeya qabowga gobolkan Texasna uu yahay mid ka mid ah gobolada ugu kulul Mareykanka sidaa darteed Greg marka uu qolka soo galay waxa uu shiday mukeefka oo uu geeyay heerka ugu sarreeya qabowga ee uu gaari karo kadibna inta uu sariirta jecelaystay ama dhabar ugu jiifsaday ayaa uu gacanta bidix ku qabsaday remote-kii isagoo oo baaraya kanaalada TV-ga halka uu gacanta midigna kaga haystay sigaar uu markaas shitay qodob kale oo iyana ay tahay muhiim in aynu sheegno ninkan Greg waxa uu aad ugu darnaa cabidda sigaarka oo waxa uu ahaa sigaariye cab weyn isagoo oo aan u danay jirin caafimaadkiisa xataa marka ay noqoto dhanka cuntooyinka Greg waxa uu ahaa mid aan u kala dayin cunto u fiican caafimaadkiisa iyo mid kale ee waxa uu cuni jiray wax kasta oo ka soo horbaxa haddana taa bedelkeeda caafimaadkiisu waxa uu ahaa mid aad u wanaagsan oo waxa uu ahaa nin isagoo oo konton jir ah haddana uu jidhkiisu dhisan yahay wax caqabad caafimaad ahina aanay haysanin isagoo sidii u jecelaysan sariirta oo kanaaladii TV-ga baaraya ayaa waxa ka soo horbaxay filimka Iron Man oo ka socda kanaalada mid ka mid ah kadib waxa uu yiri sax kana igu filan kadibna filimkii ayuu xoogaa iska sii daawaday sidaasna waxa uu ku qaatay habeennimadaas oo sidaas ugu dhamaatay kadib waxa bariyay waaga aroornimadii xigtay aroor kasta marka uu soo toosana Greg waxa caado u ahayd inuu waco xaaskiisa Susan si ay xaaladahooda iskaga warhayaan in aroornimadan Greg ma soo wacin xaaskiisii Susan dabcan xaaskiisina waa ay yaabtay waayo ma yahay waxay u baratay inuu soo wici waayo xaajigeedu markii ay xoogaa sugtay kadibna iyada ayaa bilowday in ay wacdo telefonkiisa balse telefonkiisii ma qabanayo kadib markii ay xoogaa ku celcelisay ee telefonkiisii uu qaban waayeyna waxa ay bilowday in ay wacdo xafiiska shirkadii uu ka shaqaynayay balse sidoo kale shirkadiina telefonkii cidima qabanayso balse markii ay xoogaa ku celcelisay telefonkii ay marna telefonkiisii wacdo marna telefonkii shirkadda ay wacdo waxa ka qabtay asxaabtiisii ay ka wada shaqaynayeen shirkadda iyagoo u sheegay in aanu saaka shaqada imanin Greg sidoo kale wax telefoon ahna aanay ka helin dhankiisa xaaskiisii Susan iyo asxaabtii ay ka wada shaqaynayeen shirkadda waxa ay isla garteen in ay wax qaldan yihiin waayo weligeed may dhicin Greg in uu ka habsaamo shaqada oo waxa uu inta badan ahaan jiray qofka ugu soo horeeya ee u yimaada shaqada xataa haddii uu ku yimaado dib u dhac
waxa uu ahaa mid soo waca xafiiska oo u sii sheega balse aroornimadan wax telefoon ahna lagama helin isla markaana telefonkiisii ma qabanayo xaaskiisina waxa ay ka codsatay asxaabtii ay ka wada shaqaynayeen shirkadda in ay tagaan hodheelkii uu deganaa oo ay soo hubiyaan xaaladiisa waayo xaaladani ma aha mid hore looga bartay Greg isla markiibana asxaabtiisii waxa ay tageen hodheelkii uu deganaa gaar ahaan qolkii uu ka deganaa ee 348 waa ay garaaceen iyaga oo magaciisa u dhawaaqaya balse wax jawaab ah may helin markii ay ku daaleen waxa ay u tageen maamulkii hoteelka oo ay uga warrameen xaaladan kadibna waxa soo raacay mid shaqaalaha kamid ah oo isaga laftigiisu xoogaa garaacay markii ay ka qoosteenna qofkii shaqaalaha waxa uu soo qaatay furihii kaydka u ahaa qolkan oo uu qolkii ku furay balse waxa ay arkeen waxa ay ahayd wax aad looga naxo waxa ay la kulmeen ninkii Greg oo dhulka yaala wax dhaqdhaqaaq ahina aanu ka muuqan oo u eg inuu dhintay ama uu yahay meyd qaabka uu meydka Greg dhulka u yaalana waxa ay u muuqataa inuu markii koobaad jilbaha u dhacay kadibna uu u ciiray dhanka bidix oo uu dhabanka bidix dhulka ku dhuftay jiqilkiisa ama xusulka gacanta bidix waxa uu hoos u gashay yahay oo uu ku dhagan yahay cajiradiisa sidoo kale labada farood ee gacanta bidix oo kor u taaganna waxa uu ku hayaa sigaar uu cabayay oo u muuqda inuu sidaas ku dhamaaday oo haashkii oo dhami ku dhagan yahay asxaabtii ay wada shaqaynayeen iyo maamulkii hoteelku isla markii ay arkeen muuqaalkaas naxdinta leh waxa ay waceen gargaarka degdega ah iyo booliska isla markiibana waxa goobtii soo gaadhay ambulance iyo koox caafimaad oo dabcan ay la socdaan koox boolis ah kooxda booliska ee goobta soo gaadhayna waxa markaas madax u ahaa dambi baare lagu magacaabo Scott Abel oo noqon doona ninka baari doona ama gacanta ku hayn doona shilkan meesha ka dhacay hawshii koowaad ee ay boolisku qabteenna waxa ay ahayd in ay sawirka ka qaadaan dhammaan qolkii oo dhan iyo qaabkii uu u yaalay meydku dambi baarihii Abelna waxa uu baaray dhammaan qolkii oo dhan albaabkana kama ay muuqan wax calaamad ah oo tilmaamaya in la soo jabiyay qolkuna waxa uu ahaa mid nidaamsan oo sidiisii u kala habaysan qolku muu ahayn meel ay ka muuqato inuu yahay meel uu ka dhacay iska horimaad muran ama dagaal iyo wax sidaas midna oo wax waliba sidoodii ayay u kala nidaamsanaayeen kadibna waxa uu bilaabay inuu baaro dhammaan alaabihii uu iska lahaa Greg waxaanu jeebada dambe ee surwaalkiisa ka helay boorsadiisii lacagta oo ay ku jirto lacag aad u badani oo gaadhaysa ilaa $1,000 taasoo cadayn u ah in aanay goobta soo gelin cid tuuga ahi oo aanay qolka ka dhicin xatooyo kadib markii ay sawirro aad u badan ka qaadeen meydkii Greg iyo qaabkii uu u yaalay dambi baare Abel waxa uu bilaabay inuu meydkii dhabarka u rogo oo uu dhinac walba ka fiiriyo indhahana ka buuxsado kor ilaa hoos balse kumuu arkin haba yaraatee wax dhaawac ah iyo wax dhiig ah midna ama meel la oran karo wuxuunbaa ka soo gaadhay dhaawaca kaliya ee uu dambi baaruhu ku arkay jirkiisana waxa uu ahaa mid kaga yaala dhabankiisa bidix kaasna dabcan sababtiisu waa ay iska cadayd oo markii uu dhintay ee uu dhulka ku dhacay waxa uu u dhacay dhanka bidix oo waxa uu dhulka ku dhuftay madaxa gaar ahaan dhabankiisa adigu isku soo wada duuba wax calaamada oo tilmaamaya in nabar loo geystay ama wax lagu dhuftay Greg kama ay muuqan jirkiisa haba yaraatee kadib markii uu dambi baarihii dhameeyay baaritaankii qolka iyo meydka waxa uu bilaabay inuu wareysto dhammaan shaqaalihii hoteelka isagoo oo weydiinaya bal in ay habeennimadii xalay arkeen wax uun laga shakin karo shaqaalihii hoteelkuna waxa ay sheegeen in fiidnimadii xalay mar kamida uu Greg soo qaatay bac yar oo ay ku jirto daango ama salool ama waxa loo yaqaan popcorn oo uu gashaday microwave-ka ama moofada si uu u kululaysto balse markii uu daangada ama popcorn-ka geliyay microwave-ka ay dhacday cilad koronto oo ay korontadii ka tagtay qolkiisa iyo qolalkii kale ee la jaarka ahaa ee ay ku wada yaaleen dabaqa kadibna inta uu Greg soo degay uu u sheegay ciladaas dhacday maamulkii hoteelka kadibna loo diray shaqaalihii cilad saaridda korontada oo ay korontadii hagaajiyeen korontadiina ay u soo noqotay dhammaan qolalkii oo dhan waqtigaasina sidii ay shaqaaluhu sheegeen ay ahayd ilaa 8 iyo barkii habeenimo taasina waxa ay cadaynaysaa inuu Greg noolaa oo uu caafimaad qabay ilaa waqtigaas ay ahayd 8 iyo barka dambi baarihii Abel markii uu dhameeyay wareysigii shaqaalaha waxa uu bilaabay inuu wareysto dadkii deganaa qolalka isaga ku dhagan ee la jaarka ah gaar ahaan dadkii deganaa qolka ku dhagan qolka uu deganaa Greg habeennimadaasna qolkaas ku dhaganaa Greg waxa deganaa 3 nin oo saddexduba ah shaqaale ka howlgala korontada una shaqeeya shirkad deegaanka ah marka uu dambi baarihii Abel weydiiyay in ay habeennimadaas waxuun arkeen laga shakin karana waxa ay dhammaantood ku jawaabeen in aanay waxba arkin marka laga reebo daqiiqadahaas yar ee ay korontadu maqnayd iyaga oo intaas ku daray in ay habeennimadaas cabsanaayeen oo aanay si fiican waxba u xasuusanin dhammaan baaritaanadii iyo wareysiyadii uu qaaday dambi baarihii Abelna waxa ay isugu soo biyashubteen in aan goobtan ka dhicin wax dagaal ah ama iska horimaada oo geerida Gregna ay u eg tahay dhimasho caadi ah markii ay booliskii dhameysteen baaritaanadoodiina waxa ay meydkii u qaadeen dhanka iyo dhakhtarkii sharciga ahaa ee baari lahaa isla waqtigaasna dambi baarihii kiiska gacanta ku hayay ee Abel waxa uu wacay xaaskii Greg ee Susan waxaanu uga warramay sida ay wax u dhaceen xaaskii Greg ee Susan dabcan aad ayay uga naxday warka
dhimashada Greg ee loo sheegay oo aad ayay u murugootay isla markiibana waxa ay u soo ambabaxday dhankaas iyo gobolka Texas iyada oo la socota qaar ka mid ah eheladeeda marka xaaskiisii Susan ay soo gaadhay goobta ee ay wada fadhiisteen dambi baarihii Abel ee uu uga warramay dhammaan baaritaanadii iyo waraysiyadii uu qaaday oo dhan una sheegay ilaa iyo hadda in aanay jirin cid ay uga shakisan yihiin geerida Greg oo ay u badan tahay inuu si caadi ah u dhintay waxa kale oo ay xaaskiisii Susan intaas ku dartay in ay iska sii garanaysay inuu maalin u dhiman doono caafimaadkiisa oo aanu ilaalinaynin darteed oo uu ahaa mid aanu aaba yeelin caafimaadkiisa wax kasta oo ka soo horbaxana iska cuna sidoo kale uu ahaa sigaariyo cab aad ugu daran cabidda sigaarka iyada oo Susan sheegtay in ay mar kasta uga digi jirtay una sheegi jirtay in ay waxyaabahaasi maalin uun ku sababi doonaan inuu wadnuhu istaago marka ay arrintu halkaas maraysana waxa ay noo muuqata cidda aaminsan in uu caadi isaga dhintay in aanay ahayn dambi baarihii oo kaliya balse xaaskiisii ayaa xataa qiraysa in ay u eg tahay inuu caadi isaga dhintay oo aanay cidi dilin waqtigaasna meydkii Greg waxa uu yeelay dhakhtarka oo waxa baarayay dhakhtarkii sharciga ahaa ee loogu talagalay inuu baaro meyd kasta oo lagu tuhunsan yahay in wax loo geystay wadamada reer galbeedku sideenoo kale ma aha la iska aasayo meyd kasta ee meydka laga shakisan yahay ama wuxuu loo tuhunsan yahay waa la baaraa heer laga gaadho in calooshiisa la jeexo oo xubnihiisa loo fiiriyo xabad xabad iyada oo laga baarayo bal in wax laga helo nabar ama calaamad tilmaamaysa in wax loo geystay dhakhtarka markan baarayay meydka Gregna waxa uu ahaa dhakhtar lagu magacaabo Tommy Brown dhakhtarkaas oo ahaa dhakhtarka sharciga ah ee ugu weyn magaalada Beaumont marka dhakhtarkii sharciga ahaa uu si fiican u fiiriyay ee uu dhammaan jirkii Greg dusha ka baarayna kama uu helin wax calaamada ama wax dhaawac ah oo tilmaamaya in wax loo geystay sidii uu hore u sheegay dambi baarihii Abel marka laga reebo nabarka kaga yaala daanka oo isna bilowgiiba lagu xukumay inuu yahay ku dhicitaankii uu dhulka ku dhacay markii uu dhintay laakiin dhakhtarkii sharciga ahaa ee Brown waxa uu jirkii Greg ka helay dhaawac yar oo kale oo kaga yaala bowdadiisa bidix dhanka hoose waliba xigta dhaawacaas oo ahaa mid uu aad afkiisu u yar yahay oo aanay indhuhu si fudud u qaban karin wax qariib ah oo dhaawac lagu tilmaami karana aan ahayn kadib markii uu dhakhtarku dhameeyay baaritaankii sare ee jirka ee uu jeexay calooshiisa una gudbay gudaha inuu fiiriyo waxa uu ku arkay wax aad loola yaabo oo aanu marna filanaynin inuu ku arki doono qofka uu imika dushiisa baarayay oo dhakhtarkii waxa uu arkay in jirkii Greg dhammaantii uu gudaha ka burbursan yahay oo uu jirkiisu gudaha xoog uga dhiig baxay dhammaan xubnaha jirkiisuna ay isku walaaqan yihiin dhammaan xubnaha ku jira calooshiisa laga soo bilaabo xagga hoose ilaa dhuunta oo uu ku jiro wadnuhu ay dhammaantood wada go'een xataa calooshiisu ay dilaacday oo raashinkii ku jiray calooshiisu uu dibadda u soo baxay dhammaan feedhihiisa iyo wixii lafa ahina ay jajaban yihiin dhammaan laabtiisana uu buuxiyey wax alla wixii dhiig jirkiisa ku jiray sidoo kale waxa kale oo uu arkay inuu wadnihiisa ku yaalo dalool dhakhtarkuna markii uu ka warramayay sida uu u dhaawacan yahay gudaha hoose ee jirka Greg waxa uu tilmaamay inuu la mid yahay sidii qof galay shil ama sidii qof loo geystay jug aad u weyn taasina haba yaraatee ma yahay wax aqliga geli karayay oo ismay lahayn muuqaalka guud ee jirkiisa oo aanay ka muuqan wax dhaawac ah haba yaraatee iyo sida uu u burbursan yihiin dhammaan jirkiisa ama xubnaha hoose ee jirkiisu si kastoo ay tahayna warqadiisii waxa uu ku qoray in ninkan loo geystay dil iyo sababta uu u dhintay oo ah in jirkiisa la garaacay ama loo geystay jug aad u fara badan baarikiisa gacanta ku hayay ee Abel aad ayuu ula yaabay marka uu arkay warqadii ka soo baxday dhakhtarka waayo marna muu filanaynin in la soo qori doono waxa uu u dhintay garaacid meydkii uu arkayay ee aan dusha ka qabin wax dhaawac ah haba yaraatee marka uu dhakhtarkii u tagay si uu u weydiiyo sida ay u soo baxday natiijadan ah waa la garaacayna dhakhtarkii waxa uu ku yidhi imaqal waan ogahay in wax dhaawac ah ama wax calaamad ah aanay ka muuqan meydkan dushiisa marka aan fiiriyay xubnaha hoose ee jirkiisa ama qaabka ay wax u gaadheen jirkiisa hoose waxa kaliya ee lagu macnayn karaa waa inuu gaadhi jiiray ama in ninkan jug aad u badan loo geystay dambi baarihii Abel aad ayaa uu la yaabay warkan dhakhtarka mana aha wax uu si fudud u qaadan karo haddana maadaama ay warqadani tahay warqada ka soo baxday dhakhtarkii sharciga ahaa ee meydka baaray waa inuu sideeda u qaataa oo uu kiiska ku waajahaa inuu yahay kiis faldambiye dil ah dambi baarihina waa uu baxay mar labaadna waxa uu waraystay dhammaan shaqaalihii oo dhan iyo dhammaan dadkii deganaa qolalka la jaarka ah qolkii uu deganaa Greg balse haba yaraatee wax cusub oo uga soo baxay ma jiraan kadibna waxa uu u tagay xaaskii Greg ee Susan iyo eheladii iyo qaraabadii ay qoysku lahaayeen oo uu ka waraystay dhammaan taariikhdii iyo xidhiidhadii Greg bal inuu ka helo sabab in ay jirto ay cidi ku dili karto balse wax uu ka helay ma jirto haba yaraatee oo Greg waxa uu ahaa nin ku nool nolol aad u degan oo uu aad ugu faraxsan yahay manay jirin cid la oran karo waxa ka dhaxeeya muran ama isqabqabsi haba yaraatee kumanuu jirin wax xiriir ah ama wax meel uu ka soo gali karo oo la oran karo waxay ku keeni karaan in la dilo dambi baarihii Abelna dhan kasta
uu arrintan u qaado waxa uu kala kulmay albaabo xiran oo muu helin xataa dun yar oo uu raaci karo oo kiiskan ku hogaamisa inuu baari karo waqti dheer oo 7 bilood ayaa ka soo wareegtay waqtigii uu shilkaasi dhacay dambi baarihii kiiska gacanta ku hayay ee Apple-na wax natiijo oo la taaban karo oo uu ka gaaray ma jirto kadibna xaaska ninkii dhintay ee Susan ayaa go'aansatay in ay kiiskan u soo kiraysato dambi baare gaar ah oo u baara faldambiyeedkan dadkii asxaabta iyo ehelada la ahaana waxay u soo jeediyeen in ay qabsato dambi baare lagu magacaabo Kim Bernard dambi baarahanina waxa uu ahaa dambi baare caan ah oo ku caan baxay kiisaska sida private-ka loo xalliyo in badanna ku guuleystay kiisas loo maaro waayay marar badanna ka soo muuqda barnaamijyada TV-yada ee lagu gorfaynayo sida uu u xalliyay kiisaskiisii hore ee uu ku guuleystay dambi baarahan Kim isla markii uu maqlay kiiskanna hore ayuu ka aqbalay isagoo xamaasadaysan inkasta oo ay u yaaleen kiisas fara badan oo u baahan xalintoodu haddana kiiskan waxa ku qaaday xamaasad oo isla markiiba waa uu aqbalay dambi baarahan Kim waxa uu hore u ahaan jiray sarkaal ka tirsan ciidamada sirdoonka Mareykanka gaar ahaan hay'adda la dagaalanta mukhaadaraadka markii uu shaqada ka fadhiistayna waxa uu go'aansaday inuu iskii u furto shirkad si gaar ah wax u baadha isla markii uu kiiskan aqbalayna waxa uu u duulay gobolka Louisiana oo ay deganaayeen qoyskii uu ka tagay Greg halkaas oo uu kulmay xaaskii Greg ee Susan isagoo isla markiiba bilaabay inuu weydiiyo su'aalo aad u qoto dheer oo ku saabsan noloshii Greg iyo xiriirka ka dhaxeeyay labadooda iyo wax kasta oo maskaxdiisa ku soo dhici karayay laakiin xaaskii Greg ee Susan waxa ay u arkaysay ninkeedii dhintay mid daacad u ahaa oo aan noloshiisa ku jirin wax madmadow ahi marka laga reebo dhanka noloshiisa caafimaad oo uu ahaa mid aan u turin caafimaadkiisa waxa kale oo uu dambi baarihii Kim weydiiyay Susan in ay u sheegto in uu waxa ay la yaabta ay ku aragtay goobtii ay ka heleen meydka ninkeeda Susanna waxa ay u jawaabtay in waxa kaliya ee ay la yaabtay ay ahaayeen in ay u sheegeen markii ay meydka heleen inuu qolku aad u kululaa oo mukeefkii qolka ku xidhnaana aanu daarnayn ama uu dansanaa taasina haba yaraatee ma ay ahayn caadada ninkeedii dhintay طبعا Susan may joogin waqtigii meydka la helay laakiin sida dokumentiyada iyo baaritaanadii uu sameeyay dambi baarihii hore ay cadeeyeenba waqtigii meydka la helay qolku aad ayuu u kululaa mukeefkuna waa uu dansanaa inkasta oo uu Greg aad u jeclaa qabowga markastana uu daaran jiray mukeefka kadib markii dambi baarihii cusbaa ee Ken wax kasta oo uu ka heli karayay Susan uu weydiiyay oo uu buug ku qortay waxa uu raacay diyaarad kale oo waxa uu u duulay gobolkii Texas ee uu shilku ka dhacay halkaas oo uu kula kulmay dambi baarihii hore ee kiiska gacanta ku hayay ee Apple iyaga oo labada dambi baare isla markiiba si fiican isku fahmay xiriir fiican iyo wada shaqayn kiiskan ahina ay dhex martay oo dambi baarihii hore ee Apple waxa uu gacmaha u fidiyay caawinaad kasta oo uu ka heli karo dambi baarahan cusub ee Kim iyo natiijo kasta oo uu ku soo kordhin karo kiiskan maadaama dambi baarihii hore ee Apple uu kiiskan garan waayay dhan uu u dhaqaajiyo waqti dheer oo 7 bilood ahina ay ka soo wareegtay ilaa imikana aanu wax xal ah ka gaadhin waxaanu gacanta ka geliyay dhammaan dokumentiyadii iyo cadeymihii laga soo ururiyay goobtii uu shilku ka dhacay dambi baarihii cusbaana waa wada akhriyay dhammaan cadeymihii oo dhan oo ay ku jirto warqadii ka soo baxday dhakhtarka sharciga ah ee baaray meydka kadibna labadii dambi baare waxa ay isku raaceen qolkii 348 ee ku yaalay hotelkii Elegante ee uu shilku ka dhacay dambi baarihii cusbaa ee Kiina waxa uu bilaabay inuu qolkii dib u baaro oo uu jiha kasta oo qolka kamida baaro isaga oo qiyaasaya oo maskaxdiisa ka sawiranaya sidii ay wax u dhici karayeen oo dhan kadib markii ay qolkii xoogaa dhinac walba ka baareen dambi baarihii cusbaa ee Kiin waxa uu la soo baxay taleefankiisii kadibna waxa uu wacay xaaskii Greg ee Susan isaga oo weydiiyay su'aal aad u la yaab badan waxa uu weydiiyay in sida caadada u ahayd ninkeedu uu sigaarka ku cabi jiray gacanta bidix iyo in kale kadibna waxa ay ugu jawaabtay maya inta badan waxa uu ku cabi jiray gacanta midig kadibna inta uu u mahad celiyay oo taleefankii dhigay ayaa uu bilaabay inuu fikiro dambi baarihii hore ee Apple ayaa isaga oo yaaban u sheegay in markii ay meydka heleen uu sigaarka ku haystay gacantiisa bidix laakiin markaas ay u maleynayeen waxaan muhiim ahayn oo kiiskan wax natiijo ah ku soo kordhin karin dambi baarihii cusbaa ee Ken ayaa ugu jawaabay in uu og yahay in aanay ahayn wax sidaas u sii muhiim ah laakiin ay ka caawinayso inuu si fiican u sawirto sidii ay habeenkaas wax u dhaceen imikana uu aaminsan yahay in sidii ay habeenkaas uu shilku u dhacay ay maskaxdiisa si fiican ugu sawiran tahay dambi baarihii hore ee Apple ayaana ku yiri waa si fiican bal inooga waran sida ay imika aad maskaxda ugu sawiratay iyo sida aad u maleynayso inuu shilkaasi u dhacay dambi baarihii cusbaa ee Ken ayaana ku yiri aynu ka soo qaadno in uu shilku dhacay saacadu markay ahayd 8:00 oo ahayd waqtigii uu Greg damcay inuu popcornka ama daangada gashado microwave-ka ee ay korontadu tagtay sida ay
cadaynayso xogtii aan ka helay xaaskii Greg ee Susan. Greg waxa uu ahaa qof aad u jecel qabowga oo marka uu qolka sidaas u soo galaba daari jiray mukeefka isla markaana geyn jiray halka ugu sarreysa ee qabowga. Sidoo kale warbixintii aad qorteen markii aad meydka hesheen waxa aad sheegteen inuu qolku kululaa isla markaana uu mukeefku dansanaa. Marka aynu fiirino labadaas warbixinoodna waxa ay cadaynayaan inuu Greg dhintay isla markii ay korontadu tagtay waqti aad u yar kadib. Sababta oo ah marka ay korontadu tagto mukeefku iskii iskuma daaro oo waxa uu u baahan yahay in dib loo daaro. oo yacni Greg waxa uu dhintay markii uu qolka ku soo laabtay ka hor inta aanu ogaanin inuu qolku kulul yahay ama aanu dareemin inuu mukeefku dansan yahay oo uu weli qolka ka sii dareemayay qabowgii hore. oo waxa aynu ognahay in qolka ay qaadanayso waqti inuu ku kululaado kadib marka uu mukeefku in badan shidnaa ka hor. isaga oo intaas ku daray Greg wax kasta oo ku dhacayba in uu dhintay intii u dhaxaysay 8 iyo badhkii ilaa laga gaaro 9kii oo aan qiyaasayo inuu markaas sariirta in yar ku jiifay oo uu daawanayay TV-ga wax yar. balse markii uu nabarku ku dhacay uu sariirta degdeg uga soo booday oo uu soo cararay xagga albaabka si uu caawimaad u dalbado isla markaana uu sigaarkii uu ku cabayay gacanta midig uu u bedelay gacanta bidix si uu gacanta ugu qabto handalka albaabka oo uu furo. laakiin intii aanu albaabka gaarinba ay naftu ka baxday oo uu jilbaha dhulka ku dhuftay kadibna uu dhinaca bidix u ciiray. Abel ayaa ugu jawaabay waa natiijo aad u fiican laakiin weli waxa inaga maqan in aynu ogaano qodobkii ugu muhiimsanaa oo ah wixii ku dhacay Greg ee sababay inuu sariirta ka soo boodo ee uu dhintay. Keen ayaa isna weydiiyay miyaad hore u aragteen calaamadaas ama daloolkaas yar ee ku yaala gidaarka albaabka u dhow. Abel ayaana ugu jawaabay haa laakiin waxaanu u fahanay in ay tahay halka albaabka gacantiisa ama handalkiisu ku dhacayay marka la soo furo. kadibna Keen ayaa albaabka soo furay ilaa uu gidaarka ku dhajiyay laakiin calaamadii waxay noqotay mid ka shishaysa albaabka oo may noqon raadkii handalka albaabka. kadibna dambi baara Keen ayaa qalinkiisii geliyay daloolkii yaraa. qalinkii ayaana hoos u sii galay daloolkii gidaarka ku yaalay isaga oo dambi baarihii hore ee Abelna la yaaban sida ay u ilduufeen daloolka intaas leeg ee gidaarka ku yaala. kadibna waxa ay u wareegeen qolkii ku xigay ee 349 si ay u fiiriyaan dhanka kale ee gidaarkii uu ku yaalay daloolku halkaas oo aanay wax calaamad ahi ka muuqan. balse Keen ayaa gacantiisa gidaarka mariyay taas oo soo muujisay daloolkii oo ay dusha kaga daboolan tahay walax dareerax cad ahi. kadibna waxa uu geliyay fartiisa ilaa ay hoos u dalooshantay oo ay cadaatay inuu yahay dalool labada qolba u bannaan oo lagu buuxiyay macjuunka cadayga. dambi baarihii hore ee Abel oo arkaya sida loogaga wanaagsanaaday baaritaanka kiiskii uu gacanta ku hayay ayaa markiiba dalbaday kooxdiisii u qaabilsanayd in ay baaraan oo diiwaangeliyaan cadaymaha goobaha ay dembiyadu ka dhacaan oo markii hore ilduufay ama si uun u arki waayay cadaymahan la yaab kale ee uu dambi baarahan cusub ee Keen helay. kooxdaas oo inta ay soo qaadeen laser ku qabtay daloolkii ku yaalay qolkii Greg la jaarka ahaa iyada oo fallaartii laserkuna ay si toos ah ugu dhacday sariirtii Greg gaar ahaan barkintii uu ku tiirsanaa ee uu sigaarka ku cabayay. markana labadii dambi baare waxa uu cadaatay inuu Greg u dhintay rasaas ka soo dhacday qolka la jaarka ah. rasaastaas oo jidhkiisa ka gashay nabarkii yaraa ee kaga yaalay bowdada ama cajirka lugta bidix. iyaga oo ku noqday dhakhtarkii baaray meydka iyaga oo tusaya cadaymahan cusub oo kule bal eeg wax fara badan ayaad arki weyday. isaga oo dhakhtarkiina sheegay inuu sidoo kale wadnihiisa ku yaalay dalool yari laakiin ay la yaab tahay sida uu jidhkiisa uga heli waayay rasaasta. aakhirkiina dhakhtarkii wuu qirtay inuu qaladkaasi ka dhacay oo uu rasaastaas arki waayay maadaama aanu jidhkiisa sare ka muuqan wax dhaawac ah oo weyni iyo sidoo kale uurku jirtiisa oo aad isugu dhex daadsanayd awgeed. balse inkasta oo meydkii Greg la gubay siduu isagu hore u dardaarmay ay haddana hayaan warqadihii baadhidda oo muujinaya in dalool yari kaga yaalay cajirka bidix. kadibna cadayntii ayuu dib u qoray dhakhtarkii isaga oo ka dhigay inuu u dhintay toogasho rasaaseed. labadii dambi baare waxa ay haddana u dhaqaaqeen sidii ay u cadayn lahaayeen ciddii rasaasta soo riday iyaga oo huba inuu ahaa qof uun ka mida 3 nin ee deganaa qolka ku xiga ee 349 oo ahaa shaqaale u shaqaynayay shirkad koronto oo deegaanka ku taala oo ay magacyadoodu kala ahaayeen Tim Steinmetz, Lance Mueller iyo Tanet Bassano. markana waxa ay go'aansadeen in ay kali u wareystaan si ay u kala xadaan iyaga oo u horyeeray ninkii lagu magacaabayay Tim Steinmetz iyaga oo u sheegaya in aanay waxba soo kordhin balse ay damceen in ay dib ugu celiyaan waraysiyada dadkii ka ag dhawaa shilka taasoo ah shay iska caadiya oo ay doonayaan in ay ku dhaariyaan oo ka saxeexaan waxa ugu dambeyn uu qof waliba sheegay. sidoo kalena waxa ay goobta keeneen xeer ilaaliye ka socda maxkamadda iyo warqad ay ku qoran yihiin wixii uu hore u sheegay oo dhami oo ahaa in aanu waxba arkin waxna maqlin habeenkaas.
kadibna waxa ay weydiiyeen in hadalkiisaas uu wax ka bedelayo iyo in kale isaga oo isna sheegay inay intaas yihiin oo aan waxba ka bedelayn kadibna Keane ayaa u sheegay in xeer ilaaliyaha hortiisa uu ku dhaarto oo uu saxeexo warqadda odhaahdiisa ku qoran tahay. Absolutely no idea. No idea. You swear everything in this statement is the truth, the whole truth, so help you God? Yes. kadibna dambi baara Keane ayaa kaga nixiyay oo ku yidhi waanu ku haynaa waayo waxaanu ognahay oo aanu cadayn buuxda u haynaa in ay rasaas ka soo dhacday qolkiina taas oo dishay Greg marka waa in aad runta sheegto si aanu ku badbaadino warqadana u jeexjeexno ama waxaanu jeelka kugu geynaynaa in aad booliska iyo maxkamadda kaga hor dhaaratay hadal beena ninkii oo tala ku cadaatay ayaa ugu dambeyntii damcay inuu runta sheego isaga oo ku bilaabay in ay ugu horeyn aaminaan in waxa meesha ka dhacay ay ahaayeen shil oo aanay u qasdiyin kadibna waxa uu sheegay dhammaan sheekadii oo dhammaystiran isaga oo yidhi habeennimadaas aniga iyo saaxiibkay Mueller ayaa hoteelka ku soo noqonay annaga oo sidana sharaab fara badan oo biira kadibna waxa noo yimi saaxiibkayaga kale ee Pisano sidaan u cabaynay ayaa Mueller noo sheegay inuu haysto bistoolad oo ay gaadhiga u saaran tahay kadibna maadaama aanu sarqaansanayn si bilaa sabab ah ayaanu ka dalbanay inuu soo qaado kadibna si doqonnimo ah ayay labadiisii saaxiib isugu qabsadeen bistooladii iyaga oo isku haystana waa ay qaraxday kadibna rasaastii ayaa dhacday oo gidaarka qabsatay kadibna waxa ay arkeen daloolka gidaarka ku yaala iyaga oo aad u naxsanna xoogaa waxa ay dhageysteen qolkii ku xigay bal in ay cid uun ku dhacday xabadu markii ay xoogaa dhageysanayeen ee ay waxba maqli waayeenna waxa ay u maleeyeen inaanay cidna waxba yeelin dabadeedna waxa ay u baxeen barxadda markii ay soo noqdeenna waxa ay qolka Grey ka maqleen qufac iyaga oo isku xaqiijiyay in laga yaabo in uu qolka ka maqnaa markii rasaastu dhacday isaga oo sii raaciyay in aroornimadii markii ay arkeen iyada oo laga soo saarayo qolka meydkii Grey ay bilowgiiba u qaateen in ay rasaastoodii dishay balse markii ay maqleen booliska oo meesha marmaraya oo leh wax dhaawac kama muuqdaan oo waxa laga yaabaa inuu wadna xanuun u dhintay ay u qaateen in laga yaabo inay isku beegantay rasaastoodii iyo dhimashadiisu balse ay haddana ogaayeen in uu kiisku si uun u soo geli doono oo ay sidaas darteed u qariyeen bistooladii daloolkii yaraana ay ka buuxiyeen oo ay ku dabooleen macjuunka lagu cadaydo sidaasna ay booliska uga qariyeen wixii ay ogaayeen sidaas oo ay tahayna ninkii lahaa bistooladda oo ay gacantiisana ku qaraxday oo ahaa Mueller ayaa la soo xiray isaga oo lagu xukumay xukun aad u fudud oo ah 10 sano inkastoo aanay ahayn dil uu u bareeray miyirkiisuna aanu joogin oo uu cabsanaa haddana waa mid aad u fudud raayigayga in lagu xukumo 10 sano oo kaliya isaga oo qof dhan dilay adiga daawade muxuu yahay raayigaagu ku soo qorbarta hoose ee commentiga sidoo kale shakhsiyadda aadka i cajibisay sheekadan ayaa ah dambi baara Keane Bernard iyo sida fudud ee uu u furfuray kiis loo maara waayay muddo 7 bilooda kaasoo ah nin aad u maskax badan kanina ma aha kiiska kaliya ee uu sida cajiibka u xaliyay balse waxa jira kiisas fara badan oo uu ku guuleystay oo haddii ay noo suurto gasho aynu ku soo qaadan doonno mowduucyo kale haddii alla idmo halkaasna waxay noogu dhammaaday sheekadeennii oo aan dabcan aad u dheereeyay fadlan muuqaalka like u dhaaf ra'yigaaguna waa muhiim